maanta markii ay saacadu ahayd 10:20 daqiiqo ayaa qarax culus loona adeegsaday gaari waxa uu ka dhacay barta kontarool ee xarunta godka Jilcow ee nabad sugidda Soomaaliya aad noogu dhow taalada daljirka Dahsoon gaariga qarxay oo aan weli nuuciisa la sheegin inkasta oo warar soo baxay ay saaru sheegayaan ayaa kamid ah kuwa galay safka baaritaanka si ay u soo gudbaan dhanka madaxtooyada Soomaaliya gawaarida kale ayaana waxa kamid ah kuwa shacab iyo ciidan gaariga qarxay ayaa waxa si gaar ah markii uu goobta soo gaaray loogu dhuftay gaari Cabdibilaah ayna saarnaayeen saraakiil iyo askar ka tirsan militariga Soomaaliya waxa gaarigaasi saarnaa kuna geeriyooday gaashaanle sare Fay Cali Raage oo kamid ahayd saraakiisha militariga iyo dhammaan askartii la saarnayd gaariga marka laga reebo hal askari oo ka shaqaynayay sidii ay goobta ugu gudbi lahaayeen si gaar ah waxa loo hadal hayaa in Fay Cali Raage iyo saygeeda ay ku wada geeriyoodeen qaraxaasi iyaduna ay ahayd umul dhawaan canug dhashay 6 gaari oo laba kamid ah ay yihiin Cabdibile xoogga dalka isla markaana waa 6 gaari oo laba kamid ah ay yihiin Cabdibile xoogga dalka ayuu toos u saameeyay qaraxa saraakiil kale oo booliiska ka tirsan goobtana marayay ayaa sidoo kale dhaawac u gaaray xildhibaano ka tirsan golaha shacabka una socday xaruntooda oo haatan ay kulan ku balansanaayeen ayaa uu saameeyay qaraxa mid kamid ah lagu magacaabo xildhibaan Xasan Shabeel ayaa dhaawac fudud u gaaray sida uu sheegay xildhibaan Cabdirasaaq Maxamed Cumar oo gurmud u fidiyay sidoo kale ilaalada xildhibaan Mariin Cariif oo kamid ah golaha shacabka ayaa ku dhintay halka mid kale oo ilaalada kamid ah uu ku dhaawacmay tirada guud ee dadka ku dhintay qaraxa ayaa ah in ka badan 20 qof sida ay xogta la ururiyay sheegayso waxaana markii askarta laga soo tago dadka dhintay kamid ah shacab qaarkood goobta ku ganacsanayay iyo barakacyaal deganaa qaraxa ayaana ah mid si weyn looga maqlay inta badan magaalada KNN xilligaasi waxa ka socday barnaamij tartan toos ah sidan ayaana looga maqlay su'aashan waa midii koowaad iyo midii labaad ee diiniga waxaana ay u dhacaysaa sheeg saddexda dhiman ee kutubta axaadiista 6 ah ee loo yaqaano ummuhaatu sita tartamayaasha safa waxa la idinka doonayaa inaad sheegtaan Cabdullaahi Xuseen Canshuur iyo Maxamed Cabdulla Qaadir Jiiro oo ka tirsan KNN ayaa kamid ahaa wariyaashii ugu horeeyay ee gaari halka uu qaraxa ka dhacay waxaana ay la kulmeen jirdil iyo sidoo kale qalabkii wardoobis oo muddo laga haystay waxaan weydiiyay Cabdullaahi sida ay goobta ku gaareen iyo waxa ay la kulmeen Cabdi Qani waa mahadsan tahay qaraxa markuu dhacay waxaan ku sugneen xarunta idaacadda kulmiye daqiiqado kadib goobta ayaan gaarnay marka waa dareemi kartaa inta uu socon karo qof jooga hooyooyinka guriga hooyooyinka ilaa daljirka Dahsoon 8 daqiiqo ayay nagu qaadatay inaan goobta gaarno oo dad dareen ku jira ahayn oo goobta qaarkood waxa laga cabsanaya in weerar toos u dhaco markii goobta aan gaarnay oo inoo soo ragashay inaan gudubno oo halka qarax uu ka dhacay aan cagta dhigno ugu horeyn dareenka nama siin inaan wax duubno oo aan soo tawino laakiin waxaan isku daynay inaan sameeyno gurmad dadkii dhaawaca iyo dhimashada goobta yaalay ayaan isku daynay inaan qayb ka qaadno oo gurmadka aan sameeyno oo aragtideennii ugu horeysay ahayd kadib duubista waa inoo dambeysay markii aan dhaawacyada qaarkood aan daabulnay oo aan doonaynay inaan xagga xog helista iyo duubista sida wax u dhaceen aan ahayn ayaa waxaan ka war helay in xabad lagu riday Maxamed Cabduqaadir Jiiro oo kaamiramanka ahaa kadibna anigoo isku soo duubay oo aniga uu igu dhagay markuu argagaxay xabad lagu riday Jiiro aniga dhahay maxaan ugu haysataa kadib aniga laftirkeyga jirdil iyo qorigii caaradiisa in lagu dhufto oo u jeedaa gacanteeda midig Cabdi Qani kadib ayaga dhexdooda ciidamadii ayaa isqabsaday oo waa ka qaadi kartaa iyo qoriga ka dhaaf xabadda ka dhaaf sidii aan nogala qaaday agabkii kaamiradii iyo tarbiyerigii labadeena meel qoraxana la istaajiyay oo ah meeshaas ma ka dhaqaaqi kartaan laba xabadaan marayna in nagula riday kadibna waxaa noo soo ragashay in ciidamadii markii goobta rasaas badan ay rideen oo shacabka lagu kala eriyaayo markaas ay noo soo ragashay in qalabkeenii aan helno muddo saacad iyo barax kadib annagana meeshaan ku xayirneen danka marka aad sawir guud ka bixiso tirada dhimasho iyo dhaawac ayaad aragtay iyo xaaladdu sida ay ahayd gaadiidka goobta marayay sida ay ahaayeen Cabdi Qani qaraxa markii aan sawir guud ka bixiyo goobta waxa uu ka dhacay intuu dhaxaysa daljirka Dahsoon iyo xaruntii hore ee baarlamaanka halkaas oo ah bar control oo gaadiidka soo galaya wadada madaxtooyada ee dhanka xawtaag ka dimaada godka Jilcow soo marta lagu hubiyo waxaa saf ku jiray gaadiid mas'uuliyiin ay leeyihiin inta badanna kaararka aqoonsiga mas'uuliyiintu ay ku soo gudbaan ciidamadana loo geeyo sidaasna ay ku soo gudbaan inta indhahiga ku arkay waxay ahaayeen ilaa 6 gaari laba kamid ah ahaayeen Cabdibile mid waxa watay oo aad u basbeelay
taliya faacali saraakiisha ciidamada militariga ka tirsanayd iyo gaari kaloo nabad sugida mas-uuliyiin gawaari xildhibaan ay leeyihiin ayaa qaarkood meesha ku basbeelay. xildhibaan Saynab Caamir oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale dhaawac fudud oo qaraxaasi ka gaaray sida lagu sheegay xarunta golaha shacabka. wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Master Mareye oo qoraal soo saarayna waxa uu sheegay in qaraxaasi ay ku geeriyoodeen dad shacab inta ugu badan isagoona tacsi u diray. halka qaraxa uu ka dhacay inta aan la gaarin ayaa inta badan waxaa ku hareeraysan goobo lagu baaro gaadiidka maraya amaba soo gudbaya marka loo fiiriyo dhanka madaxtooyada Soomaaliya. qaraxanna waxa uu dhacayaa iyadoo inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho ay yihiin kuwa xiran.